kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal idil ahaantii baalkani waa radio gada codka gobolka Gedo muujada rirkeedu yahay 89.1 magaartis kuna soo dhawaada war wixii dalkiyo daafaha caalamka inaga soo gaaray warkan waxa uu diyaaray aniga Cabdullaahi Maxamed Xamuud qodobada warka aad ku maqli doontaan waxa kamid ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo hakiyay dacwadaha la xiriira dhulka xildhibaano ka tirsan dawladda iyo odayaal oo kulamo ka wada Dhuusamareeb dawladda Soomaaliya oo ciidamo dheeraad ah iyo saanad hub ah ka dejisay Dhuusamareeb xiisad dagaal oo saaka laga dareemayo deegaano ka tirsan gobolka Sanaag tahay kuwaasi waxay ahaayeen warkii gudaha warka caalamka idinku haynana waxa kamid ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu doonayo inuu la kulmo madaxweynaha Iran kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door corona haatan ku soo dhawaada iyagoo fiisan maamulka koonfur galbeed oo hakiyay dacwadaha la xiriira dhulka warbixintaasi waxa inoo soo diyaariyay Axmed Cabdi Hiraab Abduhaab Cabdullaahi Maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in wasaaradda cadaaladda ay xoojinayso xiriirka wada shaqaynta ee kala dhaxeeya hay'adaha garsoorka si loo helo garsoor cadaalad ah isla markaana laga gudbo musuqmaasuqa waa sida uu hadalka u dhigay wasiir ku-xigeenka ayaa waxa uu tilmaamay in iyagoo fulinaya amarka madaxweynaha koonfur galbeed ee Soomaaliya ay hakiyeen dacwadaha la xiriira dhinaca dhulka ilaa inta laga gaaro xal waara maadaama ay soo bateen isqabqabsiga dhinaca dhulka ah sidoo kale wasiir ku-xigeenka ayaa waxa uu ka dhigay in la qaaday kiis la xiriira dhinaca dhulka sharciga guryaha iyo dhulka ayaa ahayn kuwa dawladda ah waxa intooda badan gacanta ku haya dadweyne Soomaaliyeed oo iskooda isu xilqaamay isla markaana ay badbaadiyeen dukumiintiyaasha xilligii ay burburtay dawladdii hore ee madaxweyne Siyaad Barre xildhibaano ka tirsan dawladda iyo odayaal oo kulamo ka wada Dhuusamareeb warbixintaasi waxa inoo eegaya Luqmaan Cabdullaahi Keerow waxa kulan aan caadi ahayn magaalada Dhuusamareeb ku yeeshay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya siyaasiyiin iyo qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka deegaanada maamulka Galmudug kulanka ayaa waxa uu u dhaxeeyay xildhibaano ay ka mid tahay Senator Jawaahir Axmed Cilmi siyaasi Cali Yare Cali iyo odayaal ka kala yimid magaalooyinka Guraceel Matabaan Xanaanbuur Mareer Guur Gadoon Dhuusamareeb iyo deegaano kale kulanka ayaa waxa looga hadlay sidii xal loogu gaari lahaa kala aragti duwanaanshaha soo kala dhex gashay dawladda federaalka Soomaaliya ahli sunna qabsoomida shirka dib u heshiisiinta Galmudug iyo dhismaha Galmudug midaysan lama oga halka ay ku dambeyn doonto xaaladda siyaasadeed ee maamulka Galmudug dawladda Soomaaliya oo ciidamo dheeraad ah iyo saanad hub ah ka dejisay Dhuusamareeb warbixintaasi waxa inoo faahfaahinaya Ilyas Cabdirashiid Cabdiqaadir ciidamo dheeraad ayaa saaka ka degay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug kuwaasoo diyaarad loogu qaaday magaalada Muqdisho sida wararka ay sheegayaan ciidamadan ayaa waxa uu heliyay saanad hub waana markii ugu horeysay ee dawladda ay hub ka dejiso Dhuusamareeb hubkaasi oo loogu talagalay ciidamada la wareegay ammaanka magaalada maalin ka hor ayay ahayd markii sidaan oo kale laba diyaaradood oo ciidan siday ka degtay magaalada Dhuusamareeb kuwaasi oo la wareegay amniga xarumaha muhiimka ee magaalada talaabooyinkan ayaa ka dhigan in dawladda federaalka ay si buuxda u adkaynayso joogitaankeeda magaalada Dhuusamareeb oo dhawaan lagu wado inuu ka dhaco shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa jiray khilaaf u dhaxeeyay dawladda federaalka iyo hoggaanka ahlu sunna oo ku saabsanaa ciidamada la wareegay Dhuusamareeb iyo balamo ay sheegtay ahlu sunna in loogu baxay ciidamadii ahlu sunna ee deegaanka ku sugnaa ayaa lagu daray kuwa dawladda federaalka iyagoo tababaro loogu qaaday magaalada Muqdisho waxaana arrinkaas qayb ka ahayd heshiis ay hore ula galeen dawladda Soomaaliya xiisad dagaal oo saaka laga dareemayo deegaano ka tirsan gobolka Sanaag waxa warbixintaasi inoo soo diyaariyay Nuur Xuseen Xasan waxa xiisad dagaal saaka laga dareemaya deegaano ka tirsan gobolka Sanaag taasoo u dhaxaysa ciidamo kala taabacsan maamulada Puntland iyo Somaliland iyadoo badi dadka ku nool gobolkaasi ay absi soo wajahday xiisada ayaa waxa si gaar ah ugu taagan tahay magaalada Badhan iyo deegaanada hoostaga sida ay warbaahintu u xaqiijiyeen dadka ku sugan magaalada Badhan oo dhawaan ay soo gashay gacanta maamulka Puntland
taliyaha ciidamada Somaliland ee magaalada Badan Guri Ismaan Saalax iyo maamulkii degmadaas ayaa dhawaan waxa ay ku beereen maamulka Puntland waxaana la sheegay inay taasi keentay xiisad cusub oo ka dhex dhalatay labada maamul ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa Somaliland ayaa saacadihii la soo dhaafay waxaa la sheegay inay gaareen dowladka magaalada Badan halkaasi oo horey saldhigyo ugu lahaayeen ciidamada Somaliland madaxweynaha Puntland Saciid Abdullaahi Dani ayaa toddobaad ka hor waxa uu sheegay in Somaliland uu wada hadalo kala galayo dhulka ay ku muransan yihiin sidoo kalena Somaliland dhankeeda ay sheegtay inay diyaar u tahay wada hadaladaas laamaha ammaanka oo howlgal ka sameeyay xaafad ka tirsan Muqdisho waxa ay noo soo diyaariyay Xuseen Cabdirasaaq Sheekh ciidamo ka tirsan kuwa amniga dowladda Soomaaliya ayaa xalay waxa ay howlgal ka sameeyeen xaafad ka tirsan degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir howlgalkan ay ciidamada sameeyeen ayaa waxa si gaar ah ay ugu sameeyeen xaafadda Carafaad oo ka tirsan degmada Yaqshid isla markaana waxa lagu soo qabtay inta uu howlgalkan socday dad u badan dhalinyaro kuwaasi oo looga shakiyay falal amni darro wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in howlgalkan lagu soo qabtay la sheegay inuu ka tirsanaa al-shabaab xilli uu ku sugnaa guri ku yaala wadada dayactirka ee degmada Yaqshid sidoo kale dadkii ciidankan ay qabteen ayaa waxa la isugu geeyay meel barxad ah isla markaana waxa ay tilmaameen in qaarkood ay hore u sii wateen inkastoo weli wax war ah ay ka soo bixin laamaha amniga madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu ogol yahay inuu la kulmo madaxweynaha waddanka Iran marka la gaaro xilliga ay ku habboon tahay hadalkiisa ayaa waxa imaanaya kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Iran warbixin siiyay shirka G7 uu ugu tagay socdaalkan la sii shaacinin xiriirka u dhaxeeya Iran iyo Mareykanka ayaa si xumaaday wixii ka dambeeyay markii uu xukuumadda Washington ay ka baxday heshiiska taariikhiga ahaa 2015 xilli uu laga gaaray nuclearka Iran si kastaba Trump ayaa sheegay inuu dareen wanaagsan ka leeyahay in heshiis cusub la gaaro nuclearka Iran ma ahan wadan la mid ah si ay ahayd 2 sano ka hor markii aan xafiiska yimid ayuu Trump warbaahinta u sheegay isagoo joogay Faransiiska Iran oo diidan damaca Mareykanka ayaa wajahaysa culays dhaqaale oo adag waxayna xiisad ku abuurtay marinka saliidda caalamka ee Hormuz intaasi waxay inoogu eg war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray warkan waxa idinla socodsiinaya anigu Cabdullaahi Maxamed Xamuud dhanka farsamadan waa Maxamed Maxamuud Abdiraxmaan Maxamed Shariif warku waxa soo saaray isku soo dabariday Luqmaan Cabdullaahi Kerow halka aad ka dhageysanayseen waa codka gobolka Gedo muujid dhirkeedu yahay 89.1 MHz studio koowaad ee ku leenahay degmada Dolow Soomaaliya ciduu warka u dhaafayna waxay dib ugu daalacan karaan barta baraha bulshada aan ku leenahay Radio Gedo Facebook Radio Gedo iyo waliba YouTube-ka Radio Gedo intaan warkaani war la mid aan ku kulmi doono bahda Radio Gedo isku duubno